koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah waxay xukunno kala duwan ku riday rag loo haysto qarax dad badan ay ku dhinteen oo dabiiqadii sanadkii 2018 ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir 26 bishii 11 ee November ee sanadkii 2018 qarax ka dhacay suuqa Kaabagoday waxa ku nafwaayay 12 qof halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 7 qof rag loo haysto qaraxaas ayaa maanta ka soo muuqday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida eedeysanayaasha loo haysto qaraxaas ayaa waxa lagu kala magacaabaa Xasan Cali Barre iyo Siyaad Cali Aadan Nuur waxayna xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ay sheegtay in ay ka dambeeyeen qaraxaas oo ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo xilligaas ku sugnaa suuqa Kaabagoday ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada ayaa xukun dil ah ku riday Xasan Cali Barre halka Siyaad Cali Aadan Nuurna lagu xukumay xabsi daa'im waxayna maxkamadda ay sii deysay Muxudiin Maxamed Axmed oo lagu waayay kulul lahaanshaha falkaas sida uu ku dhawaaqayo Xasan Cali Nuur Shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumeentida kala ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha koowaad iyo labaad labo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qaraxii ka dhacay suuqa Kaabagoday degmada Wadajir 26 bishii 11 2018 saddex sawirada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa afar buraha gaarigii filarta ahaa ee qarxay oo uu waday eedeysane Xasan Cali Macalin Barre markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy labo Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay dambiile shabaab Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy dil toogasho labo dambiile shabaab Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy xabsi daa'im sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ xabsiga laga sii daayo cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan raacfaan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa alaaba go'aan ka gaarta rag loo haysto kiisaska ah al-shabaab iyo Daesh kuwaas oo weerar ka geysta magaalada Muqdisho iyo qaybo kamid ah gobolada dalka